بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كجدال ما أنت ومالو وين تاريخي تاريخ الدولة الدسيدة الصومالية عصب أي نقطة هاي تاريخ سنة كلا صور دافي حكومة الدلك كجرتي محوها هاي أو برد ويتو وصار ما ذا وقت جدي هذا سيد الدستور كوي أمريو أو نوعو قرن دستور كنا مدحوينه إنه صام مقعاب رئيس الوزراء ضدك بدنا أو صومالي ده أو آد أصوات الضاني إن أي مسؤولية داس آد كأو عرس أي كقبطان دلك الصومالية دمانتون وأنو مهد علينا يا رنتينا وحا جقد الصوت الضلبضي أما أو عرري رك يقبض الصوماليات oo intooda badan runtii aan dhihi karo way u wada qalmeen inay mas'uuliyaddaas qaadaan aniguna runtii kala saaristooda iyo kala waxayntooda runtii waqti dheer iyo saacado badan oo shaqo igu qaadatay aad iyo aad ay idadiilo cusub iyo rajo cusub u tahay dadka noocyadaas iyo qualitiska noocaas leh inay maanta u soo haliilaan in ay mas'uuliyadda dalka hore ay yimaadaan waraysi badan iyo la tashiyo badan oo aan dadka Soomaaliyeed noocyadooda kala duwan aan la soo yeelanay markii dambe waxay ku soo gabagabowday galabta inaan u magacaabo Dr. Cabdiwali Sheekh Axmed inuu noqdo Prime Minister ka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaan rajaynayaa in Ilaahay tala go'aankaas aan gaaray oo ka dhigo mid kii Soomaaliya u wanaagsanaa niyad samaan iyo dadaal iyo la tashi ra'yiga dadweynaha iyo mas'uuliyiinta iyo madaxda dalka ayuu ku yimiday waxaan ahayn wanaagga Soomaaliya oo aan go'aankaas ku gaaray ma jirto waxaan ahayn wanaagga Soomaaliya oo dan ah oo kale oo laga lahay ama intii ila talisa ha noqoto ama aniga ha noqoto ma jirto waxaan rajaynaynaa Dr. Cabdiwali in uu Soomaaliya hor u sii dhaqaajiyo raggii hore ee soo dadaalay meeshii ay keeneen meel oo halka uu ka sii qaado fursadan waa fursad kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dabcan dadka Soomaaliyeed baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dadweynaha bulshada rayidka odayaasha dhaqanka dhammaan dadkii muddadii koobneyd ee la tashiyada aan ku jirnay ee Prime Ministerka soo saaristiisa aan ku mashquulsanahay ila talisay talooyinkii aad iyo aad qiimka u ahaa isiisay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo aad iyo aad ay u mahadsan yihiin talooyinkiina oo la soo ururay iyo muwaasifaadkii aad bixiseen iyo criteria aad bixiseen ninkii aan ku qiyaasay in uu ku habboon yahay ama uu buuxinayay ayaa waxaa noqday Dr. Cabdiwali waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkiis in uu Soomaaliya ay hoggaankaas cusub ay yeelatay Dr. Cabdiwali waxaan ka sugaynaa waxay tahay xukuumad cusub oo dalka meesha uu joogo maanta ka dhaqaajisa horumar iyo kalsooni iyo nabad iyo dib u heshiisiin iyo dawladnimo adag dalka u keenta annaguna inaan ku garab siino ayaan mudanaa waana yeeli doonaa hadii mar kale waa idin mahad celinayaa aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum warahmatullahi bismillahir rahmaanir rahiim madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka xubnaha goliga wasiirada xildhibaanada baarlamaanka taliyaasha ciidamada qalabka sida diblomaasiyiinta hogaamiyaasha bulshada bahda saxaafadda mudanayaal iyo marwooyin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeyn waxaan mahad weyn u celinayaa oo kaliya laaba madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ii magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed anigoo aad ugu faraxsan magacaabistan iyo kalsoonida aan ka helay madaxweynaha in aan qabto xilkan muhiimka ah oo sharafta badan mudane madaxweyne marweyne xilkan waa mid aad u sharaf badan haddana waa mid aad u culus dalkeena maanta wuxuu marayaa marxalad adag
oo gaar ah oo aynu wajahayno dhibaatooyin guun ah xagga amniga, dhaqaalaha, siyaasadda iyo bani aadamnimada. waxaan fahamsanahay baaxadda iyo cumqiga ay leeyihiin dhibaatooyinkaas iyo awoodda xadidan ee aynu u haysanno si aynu wax uga qabanno dhibaatooyinkaas. mudane madaxweyne, marweyne iyo madaxweyne, inta aan hayo xilkan waxaan ku dadaali doonaa inaan si ambaqaado sarana u qaado howlihii ay bilowday xukuumaddii iga horreysay oo uu hogaaminayay mudane cabdi faarax shirdoon. waxaan ahmiyad gaara siin doonaa oo aad kula xisaabtami doontaan nabadeynta iyo xasilinta dalka, dhamaystirka dhismaha iyo ka shaqaysiinta hay-adaha dowladda iyo baahinta maamulka, qadiyad tirista dastuurka iyo aftuuqaadistiisa, horumarinta maamulka gobollada, hirgelinta nidaamka federaalka iyo u diyaargarowga doorashooyin xor oo madax bannaan, dib u dhiska iyo kobcinta dhaqaalaha dalka, horumarinta kaabayaashiisa, iyo dib u habeynta garsoorka iyo sharciyada dalka. sidoo kale waxaan ku dadaali doonaa inaan wax ka qabano horumarinta xiriirka iyo wada shaqeynta dowladda Soomaaliyeed iyo deriska iyo beesha caalamka intaba. qabashada howlaha kor ku xusay waxay hagi doonaan go-aanadii ka soo baxay shirarkii qaran ee aqoon-yahanada Soomaaliyeed oo aan akhriyay si fiican u akhriyay wax ku oolna kuwaasoo ay kaga hadleen arrimaha waxbarashada, higsiga 2016, xagjirnimada, caafimaadka iyo New Deal Compact documentka la yidhaahdo. kuwaas ayaa u noqon doona basiska ka dhaqaaqay. mudane madaxweyne, marweyne iyo mudanayaal, howlahaas waxaan kaashan doonaa qabashadooda baarlamaanka sharafta leh, maamulada gobollada, ururada kala duwan ee bulshada, culamaa diinka, aqoon-yahanada, haweenka iyo dhalinyarada. ugu dambeyn, mudane madaxweyne, marweyne iyo mudanayaal, waxaan jeclahay inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan u mahadceliyo dhammaan dowladaha deriska, goboleedyada, beesha caalamka oo muddooyinkii lasoo dhaafay u dhabar adeegay gargaaridda iyo gacan ka geysashada dib u dhiska Soomaaliya. waxaan baaq u jeedinayaa dhammaan bulshaweynta Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan inay si buuxda gacan u siiyaan xukuumadda cusub oo aan hogaamin doono si aan tallaabo u qaadno. sidoo kale waxaan u baaqaynaa ururada Soomaaliya gargaara, gaar ahaan qaramada midoobay, IGAD, African Union, Arab League, OIC, ururka Islaamka, dalalka deriska iyo kuwa caalamkaba inay sii wadaan siina xoojiyaan taageeridda ay siinayaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaan ballan qaadaynaa inaan si weyn ula shaqeyno si gargaarkoodu u noqdo mid wax ku ool ah ummadda Soomaaliyeed waxtar ah. ugu dambeyntii, mar labaad ayaan idin mahadcelinayaa marweyne mudanayaal. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa hadalkii. waa mahadsan.